leenahay u dulqaadan mayno anagu haddaan nahay Soomaali dilka lagu hayo dadkeena maantana waxaan u soo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dawladda Kenya dawladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda inay badbaadiso nolosha shacabkeeda hawshaasi way ka soo bixi waaysa dawladda Kenya sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay 3 qof oo ka tirsan hal qoys waa xanuun iyo tiraanya aad u culus oo Soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gelgelatay kana xanuunsatay marka waan diidanahay ma ogolaanayno dawladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee magaalada wareegaya nimankaasi dhowr waa niman gang oo wada tashaday 3 meelood bay meedka ku tuureen shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay South Sea jirkii ugu horeeyay waxay ku tuureen Parklands jirkii kale waxay ku tuureen Bahati kii saddexaadna Machakos bay geeyeen gacmahana way ka gooyeen gacmihii baa shalay laga helay South Sea marka dad yar ma aha waa dad magaalada oo dhan wareegaya dawladdana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato anigi iyo senatorka Nairobi Edwin Sifuna oo ila socda waxaan iminka ka soo baxnay taliyaha guud ee booliiska wuxuuna noo sheegay in ay ku daba jiraan oo 2 tiim oo baaritaana ay iminka hawshaasi wado waqti dhowna ay ku rajaway nimankaasi dilaaga ee wax dilay dawladdana markaa waxaan leenahay hawshaasi ha ka seexanina shalayna waxaan la kulanay agaasima ku-xigeenka laanta baaritaanka agaasimaha Maxamed Amiin wadanku ka maqan yahay waxaa jooga John Onyango nin la yiraahdo ku-xigeenkiisa asagana wuxuu loo ballan qaaday oo la yiri 2 tiim oo baaritaan ba arintaasi ku jira hawshaasi marka waxaan rajaynaynaa si degdeg ah in arintaasi loo soo afjaro oo dadkaasi la soo qabto tan kale oo aan taliyaha booliiska uu noo ballan qaaday wuxuu kordhinayaa askarta suuqa wareegaysa iyo xaafadaha maanta wixii ka bilaabma askar dheeraad aad arkaysaan oo ka shaqaynaysa nabadgelyada oo suuqa wareegaysa oo guryaha ilaalinaysa waxaanan ka codsanayaa dadku inaanay inaba walbahaar ama si cabsi aanay gelin hawshooda ay sidii hore u sii wataan laakiinse aan bixinno digniin kama dambaysa haddaan nahay shacbiga Soomaaliyeed ee wadankan ku nool iyo khaasatan Islii inaan u soo jeedsanayno daafacaadda dadkeena daafacaadda nolosha dadkeena iyo danaha dadkeena oo mar kaleeto aanan anaba marnaba u dulqaadanaynin oo aan u dhanac kale u sii jeedsanaynin haddii aan wax laga qaban dadkaasi wax dilay oo aan la soo qaban sida ugu dhaqsi badan marka waxaan leeyahay wad maasantiin waxaan u tacsiideynayaa gabdhaha iyo wiilasha reerka laga dhintay waxaan leeyahay samir imaan hal ilaahay ay siiyo gabdhihii la dilayna ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo